kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay khilaafka u dhexeeya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxweynaha galmudug iyo saraakiisha ciidamada badbaado qaran oo soo gaaray magaalada muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay ayaan ku eegi doonaa xaaladda mukhtaar roobo oo laga dayrinayo kadib markii ay dowladda Soomaaliya soo saartay warqad lagu baarayo sababta uu xiran yahay. Qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijka inta halkan ka baxayo iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo oo wajahaya xaaladihii ugu dambeeyay kadib markii uu ku dhaqaaqay go'aan aan laga fiirsan markuu xilka ka qaaday ama isku dayo inuu awoodiisa hoos u dhigo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo shir jaraa'id oo ku baaqay oon la ogeyn sida uu suurgeli doono. Madaxweynaha Puntland muxuu ka aaminsan yahay khilaafka iyo madaxweynaha Jubbaland oo sheegay inuu soo gaari doono magaalada Muqdisho saacadaha soo socda. Odayaasha magaalada Muqdisho oo shir jaraa'id qabtay ayaan ku eegi doonaa barnaamijka sidoo kale inta halkan ka baxayo. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena Galaangal News waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto sidii noogu soo hirtaan ama inoogu soo xirmaan dad wanaagsan sida adigoo kale. Muuqaalka waxaan kaa codsanaynaa inaad share tiraahdo wadaagto saaxiibada. Aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha Galmudug iyo Hirshabelle ayaa kulamo uga bilowdeen magaalada Muqdisho walow aysan weli soo gaarin magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Puntland iyo kan Jubbaland oo la sheegay inay soo gaari doonaan. Kulanka ayaa waxaa looga arinsanayaa sidii ay beesha hawiye ay madaxweynaha Soomaaliya uga soo saari lahayd madaxtooyada waxaana magaalada Muqdisho kusoo qulqulaya weli ciidamo midowga musharaxiintu ay leeyihiin ama loogu badbaado qaran kuwaas oo fariisimo ka samaystay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya oo ay ku hareeraysan yihiin madaxweynaha Soomaaliya. Ma jirto waddo u furan madaxweynaha Soomaaliya oo hadda kaga soo bixi kara xitaa ma soo aadi karo garoonka aadan cadde haddii uu isku dayo xitaa waayo waddada dabka ay degan yihiin ciidamada badbaado qaran oo si aad u hubaysan ilaa shalay ayay kusoo qulqulayeen magaalada. Waxaa sidoo kale ayadana ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble la sheegay inay xaaladiisu tahay mid degan kadib markii uu si awood sheegasho ah uu xafiiskiisa shalay ku tegay isla markaana waraaqahii uu soo saaray madaxweyne Farmaajo oo xilkiisu dhammaaday ay yihiin waxba kama jiraan. Waxaa hadda la soo sheegayaa in madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu iska joogo filla Soomaaliya asagoo wax tilaabo aan qaadi karin. Waxaa sidoo kale madaxtooyada ku sugan ciidamo aad u fara badan oo ka mid ah kuwa badbaado qaran iyo midowga musharaxiinta ka amar qaata. Waxaa sidoo kale magaalada Muqdisho maanta soo gaaray taliyihii hore ee gobolka Banaadir Cumar Saadiq John oo la ogyahay inuu kasoo horjeestay 2 sano muddo kororsiga ee Farmaajo ku dhawaaqay horraantii sanadkan. Waxaa la soo warinayaa in Saadiq John uu u yimid sida uu uga qayb qaadan lahaa dagaalka looga soo saarayo caasimadda ama filla Soomaaliya madaxweynaha hore ee Soomaaliya. Haddii uu dagaal ka qarxo magaalada Muqdisho ayaan la ogeyn sida uu Farmaajo ugu sii noolaan karo maadaama ay ka go'an tahay hareerihiisa oo dhan meel uu ka baxana aysan jirin. Waxaa sidoo kale la sheegay inuusan madaxweynuhu lahayn hadda garab military ama garab ciidan oo isaga u dagaalama. Waxaa magaalada Muqdisho ilaa xalay ilaa saakay hareeraheeda lagu arkayaa gaadiidka dagaalka oo soo galaya magaalada kadib markii uu soo saaray warqad uu sheegay Farmaajo inuu xilkii uga qaaday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble awoodiisana hoos u dhigay walow tallaabadaasi lagu sheegay mid qarayska tuurnimo ah. Dowladda Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha ku hanjabay inay tallaabo ka qaadi doonaan Farmaajo haddii uusan joojin carqaladaynta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya isla markaana uusan faraha kala bixin arrimaha doorashada. Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan senatarka Mareykanka ayaa sheegtay in la joogo waqtigii. Ilhaan Cumar ayaa sii raacisay inuu kasoo baxo Farmaajo fillada maadaama uusan u qalmin inuu joogo madaxtooyada muddo xileedkii loogu talagalanayo 1 sano dhaafsiisay. Haddaba maxaa laga filan karaa maalmaha soo socda magaalada Muqdisho? Waxaa la soo sheegayaa in ra-iisul wasaare Soomaaliya uu amray wasiirkiisa amniga inuu baaritaan ku sameeyo qaabka loo xiray Mukhtaar Roobow iyo xaaladiisii ugu dambeysay. Waxaa la soo warinayaa in haddii arrintaasi ay hore u sii socoto in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen uu soo wajihi karo culayskii ugu weynaa tan iyo markii uu la wareegay maamulkaasi xoogana dusha looga saaray dadka reer Koonfur Galbeed. Madaxweyne Farmaajo oo xilligaas ahaa madaxweynihii Soomaaliya iyo taliyihii nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Haddaba haddii ay tallaabadani sii socoto waxaa la soo sheegayaa in Laftagareen xaaladiisa loo yaabo. Shacabka Koonfur Galbeed ayaa waxay si weyn u taageersan yihiin madaxweynihii musharaxa ahaa ee Roobow oo hadda u xiran dowladda Farmaajo uu hogaamiyo ama nabad sugidda Soomaaliya oo hadda madaxda ka yahay Faray. Inta kale madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sheegay inuu ka qayb galayo shirka uu ku baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaana ay tahay in la soo ajiibo. Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale soo sheegay inuu imaan doono
maalmaha soo socda caasimadda magaalada muqdisho si uu uga qayb galo shirka uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha. Waxaan la ogeyn inay arrintani wax ka bedeli doonto xiisadda u dhexeyda Rooble iyo Farmaajo oo sii xoogeysanaysa, waxaana muuqata beesha uu ka dhashay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, beesha Hawiye, inay garab weyn u yihiin ra-iisul wasaaraha, isla markaana wixii cududooda ay iskugu geynayaan sidii meesha looga bixin lahaa, maadaama deegaankooda uu qalalaasay amni geliyey Farmaajo ayna si weyn ugu soo dhaweeyeen caasimadda. Waxaa ilaa hadda lasoo sheegayaa inay magaalada muqdisho buux dhaafinayaan ciidamada mucaaradka Soomaaliya ama kuwa badbaado qaran oo isku dayay inay Farmaajo hareereeyaan si uusan meesha usii joogin, isla markaana xukunka usii dheeraysan. Kooxaha arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa la sheegayaa in Soomaaliya noqon doonto meel lagu dagaalamo. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saaro.